xukuumaddu si degdeg ah xayiraad uga qaado telefishinka madaxa bannaan ee codka bariga Afrika bari waxa ku xiga in warbaahintii kale oo dhan iyagana la afduubo tan waa afduub cad oo geed lagu soo gaban waxaan aragnaa ururkaas oo tan inuu yahay qayb TV-ga qaran kamid ah qayb TV-ga qaran kamid ahna waxa weey umadooda karto uma hadli karto waxa weey TV-ga saxafiyan madax bannaan waxaanu anagoo cod dheer ku hadlaynaa u sheegaynaa bulshooyinka Soomaaliland iyo dawladda Soomaalilandba in cadaalad darro lagu haysto telefishinkaasi lana leeyahay maxaad u soo gudbinaysaa dareenka shacabka madaxweyne waxa weeyaan codka bariga Afrika haddaad wax ku haysatana de maxkamad keeno sheeg waxa ku haysataan hadii kalena waa caburin iyo xaq darro iyo xadgudub yeeli meynaysiida waa nasiib darro in xukuumadda madaxweyne Biixi muddadii ay joogtay 5 sano ahaa inay warbaahinta madaxa bannaan iyo telefishinada madaxa bannaan ay cadaadis ku hayso telefishinkan CB wuxuu ka shaqeeyaa caawinta dareenka dareenka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland haddaan nahay warbaahinta degmada Ceelaf Weyn gaar ahaan warbaahinta madaxa bannaaneed shirkiga jirayd maanta wuxuu daaran yahay inaanu ka hadalno oo dareenkayga ka muujino xariga tacadiga ah ee loo geystay telefishinka madaxa bannaan ee codka bariga Afrika oo hadda in muddo xidhnaa waxaan leenahay xukuumadda taas waa caburin taas waa cagajuglintii intii xukuumaddan madaxweyne Muuse Biixi ay dalka qabatay ay ku haysay warbaahinta madaxa bannaan waxaan leenahay waa nasiib darro kuwa iyaguna eeganaya caburinta saxaafadda madaxa bannaan lagu hayo ee xukuumadda Muuse Biixi ay ku hayso intay talada dalka qabatay inaan cid wax laga sheegin in xukuumaddu wixii iyada u gaar ah ay jeclaatay in la duubo waxaan leenahay waa ayaan darro waana ka xunahay waana cambaareen haddaan nahay meedii madaxa bannaan ee Ceelaf Weyn xukuumaddu si degdeg ah xayiraad uga qaado telefishinka madaxa bannaan ee codka bariga Afrika bari waxa ku xiga in warbaahintii kale oo dhan iyagana la afduubo tan waa afduub cad oo geed lagu soo gaban waxaan leenahay Soolja waxay noqotay iyadu horta meel dawladda u shaqeysa oo daawata warbaahintii madaxa bannaan meel lagu caburiyo ayagu ay ka yihiin daawadayaal waxaan leenahay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soolja iscasil ayo waxaad aragtaa maalin walba website la xiray TV la xiray warbaahin madaxa bannaan ba dalka laga yariyo dawladda kale aaday waa axleenahay taasi mid lagu eegan karana ma aha Sooljo ay gudoomiyeen ugu noqon karto warbaahinta madaxa bannaan xariga iyo caburinta lagu la kacay TV-gaas madaxa bannaan ee codka bariga Afrika kaasi oo wuxuu galabsaday aan jirin laakiin sidaan u arkay anigu waxa weey maxaa shaqada fiican ugu haysaa shacabka in lagu waxa weey lagu xiray oo lagu cagajuglaynayo laguna caburinayo taasina ma aha mid anfacdo Soomaaliland oo hadii marba ay dawladdu ama xukuumaddu ay xidho TV ay boogsato oo sidoo kale ay beegsato suxuf madax bannaan oo aan wax sameeyaan jirin laakiin shacabkiisa u shaqeynaya si hagar la'aan ugu shaqeynaya fiigaas xorriyadiisa loo soo celiyay si ugu dhaqso badan wasiir koran waxaan ugu baaqayaa wasiir hadii aad tahay wasiirkii warfaafinta ma aha inaad waxa weeye caburin ku samayso wixii aan TV-ga qaranka ahayn way TV-ga qaranka gaar hawlaha laakiin wada simay Soolja ururka Soolja saxafiyiinta madaxa bannaan ururkaas meesha uu ka baxay mana jiro urur jira ma sababtaan u jiro wax kale ma uma doodi karo TV baan u doodayn oo intaas TV intaas wargeys baa la xiray maadaama aan TV u doodi karayna shakhsi ama waxa weeye saxafi madax bannaan ama wariye madax bannaan wax u qaban kari maayo qayb horta sida bannaan markii horeba Ceelaf Weyn ka shaqeyn jiray haddana waxa noqotay inaan dalka dhan ka shaqeynay uu noqdo qayb ka mid ah TV-ga qaranka waxaan aragnaa ururkaas oo tan inuu yahay qayb TV-ga qaranka kamid ah qayb TV-ga qaranka kamid ahna waxa weey umadooda karto uma hadli karto waxa weey TV-ga saxafiyan madaxa bannaan waxa weeyaan xariga caburinta ah ee lagu la kacay TV-ga madaxa bannaan ee codka bariga Afrika taa waxaan leenahay ilaa iyo maalintii ay dawladda Muuse Biixi dalka qabsatay ee koow ahayd iyo hadda 5 sanadood tahayba ilaa iyo maalinka ama suxufi bay xidhisay ama TV bay xidhisay waxa weeyaan waa ku kowsatay waana ku dhameysatay xariga iyo caburinta waxaasina wax laga yeelay maaha
waa hadlina shacabkiina waxa u qabanina waxa weeyaan baahida iyo dhaliisha dawladdu qabanayso samayso ha sheegina weeyaan taasi yeelina mayno marka waxaan leenahay dawladdu xariga aad kula kacday TV-ga codka bariga Afrika waa khalad waxaanu yeelanayna maaha waxa weeyaan annagana de maanta codka bariga lala baxay TV kalena waa lala baxaya inta halka joogtana bari ba ka maalin ba mid loo qabsanaya haddaanan meel ugu soo wada jiisan waxaan leenahay madaxweyne waxa weeyaan codka bariga Afrika haddaad wax ku haysatana de maxkamad keeno sheeg waxa ku haysataan haddii kalena waa caburin iyo xaq darro iyo xadgudub yeelimayna siida de soorta wax noqotay laan kamida de laamaha wasaaradda noqotay wasaarad kamida wasaaradda de wasaaradaha xukuumadda musabixi shacab warbaahinta madaxa banaana sida maamul ugu ahaan maysid waxaan ku leenahay ninka haysta ee maamulka anagu doomo aqoonsan badan degmada ceelafweynaha iscaasil baan leenahay ama waxaad noqonaysaa de cid u dooda warbaahinta madaxa banaan oo TV-ga la xiriyo iyo wariye la xiriyo cid u dooda noqonaysaa ama waxaad noqonaysaa cid ku dooda TV-ga wax qabta ee dhaliisha iyo baahida jirta sheega marka waxaan ku leenahay iska casila yeelimayno waxana caburinta lagu wado tan bay ka socotaa ceelafweynaha joogna ka socotaa caburintu hargeysa ka socotaa meel walba ka socotaa waxaanu aqbalanayna ma hadda soo xarigu xal maaha yeelina mayno waxaan aqbalanayna maaha annagu waxaan u shaqeynaa waa shacabka waxa weeyaan waa baahida afka shacabkan ku hadalnaa dhibaatada iyo dhaliisha jirtaan sheegnaa haddii la yiraahdo ha sheegina de wax soconaya maaha waanu sheegaynaa haddana tirtiraysaan xarig ba ka hadlaysan haddana tirtiraysaan joojin mayno waxana shacabka u qabanayno waxaanu aad iyo aad uga xunnahay xariga cadaadiska iyo caburinta lagu hayo guud ahaan warbaahinta Soomaaliland haddii aanu nahay warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha degmada Ceelafweyn waxaanu kala mideysanahay warbaahinta kale isla markaana aad iyo aad uga xunnahay xariga iyo cadaadiska ay xukuumadda madaxweyne Biixi ku hayso telefishinada madaxa bannaan iyo warbaahinta madaxa bannaan si gaar ah waxaanu cambaaraynaynaa xariga telefishinka caalamiga ah ee codka bariga Afrika waxaanu soo jeedinaynaa xukuumadda madaxweyne Biixi isla markaana ugu baaqaynaa inay si degdeg ah oo bilaa shuruuda ay xayiraad uga qaato telefishinka caalamiga ee codka bariga Afrika waa nasiib darro in xukuumadda madaxweyne Biixi muddadii ay joogtay 5 sano ahaa inay warbaahinta madaxa bannaan iyo telefishinada madaxa bannaan ay cadaadis ku hayso waana sharci darro waxa kale oo nasiib darro ah in wasiir Koore uu yahay soo go'aanka qaadanaya sidoo doono yeelaya ku doono xiraya ku doonana furaya waana nasiib darro waana sharci darro baan leenahay wasiir Koore waxaan ku leenahay arinta ka waantow ama xayiraadda lagu soo rogay telefishinka madaxa bannaan ee codka bariga Afrika muddooyinkii u dambeeyay ay xukuumadda Soomaaliland xayirtay waxaana ayaan daraa in institutional dhan oo shaqeynaya in xayiraad lagu soo rogo oo la laalo waa ayaan daraa aad u weyn waxaan ka codsanaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Dr. Koore inuu sidoo ugu dhaqsaha badan xorriyadiisa ugu soo celiyo ama xayiraadaas ka dulqaado telefishinka ay ku soo rogtay waxyaabaha ay adeegsadeen waxaa ka mid ahaa inuu telefishinkan yahay waxayna iyo kacdoon shacab iyo sidoo kale in ruqsadii ka dhacday telefishinkan CB wuxuu ka shaqeeyaa caawinta dareenka wuxuu turjumaa dareenka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland marka waxaan ka codsanaynaa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda ugu horeeyay wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland Dr. Koore inay sida ugu dhaqsaha badan telefishinkaasi ay ugu soo celiso xorriyadoodii ururka suxufiyiinta Soolja oo ay tahay shaqadoodii waxaan maanta ka hadlayno ururka oo muddooyinkii u dambeeyay u afduubnaa warbaahinta dawladda oo ka gaabiyay aad moodo inuu ka gaabiyay waxaabii loo doortay ee ahaa inuu saxaafadda guud ahaan Soomaaliland uu sinaado waxaynu ognahay inay warbaahintu ka mid tahay ay tahay rukunka afraad ee jamhuuriyadda Soomaaliland marka waxaan cod dheer iyo cod gaaban ku sheegaynaa in telefishinka madaxa bannaan ee CB codkiisa xorriyad dib loogu soo celiyo cod dheer iyo cod gaabanba waan ku shaacinaynaa annagoo ah warbaahinta ka howlgasha degmada Ceelafweyn wuxuu maanta kulan warbaahineedkayga daaran yahay inaanu ka hadalno TV-ga caalamiga ee codka bariga Afrika oo dhawaan ay xidhay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi waxaanu annagoo cod dheer ku hadlaynaa u sheegaynaa bulshooyinka Soomaaliland in cadaalad darro lagu haysto telefishinkaasi lana leeyahay maxaad u soo gudbinaysaa dareenka shacabka saddexaad iyo mar afraad xukuumadda Muuse Biixi Cabdi garweynta ka yahay ka codsanaynaa inay sii dayso ruqsadiisana u soo celiso TV-ga codka bariga Afrika halkan kale waxaan iyadana kelmad kale kaga faa'iideysanayaa ururka Soolja wuxuu noqday mid gabay shaqadiisii
mid gabay shaqadiisii buu noqday ururka Soolja aad ayaan uga xunnahay inaad la soo safataan dawladda ana shaqadiinii ilowdaan waxaanu ka codsanaynaa ururka Soolja inay iska casilaan xilkana iska soo wareejiyaan mar saddexaad ugu celinayaaba inay iska casilaan xilka wasaaradda warfaafinta iyadana waxaan u baaqayaa inay telefishinka codka bariga Afrika iska sii deyso wax cadna aanay ku haysan